السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي القالقة isku soo noqod wanaagsan waxaan rajaynaa inuu caafimaad qabtiin aan dib isku soo noqonay hadaba janaalkeena sida hore nooga baratay wuxuu ku saabsan yahay family care skin care iyo hair care asxaabay sida hore videoga hore dadka la socday waxaan hore uga soo hadlaynay waxyaabaha sharciyaasha cusub la baaskareeyay xaggan ka dhacay xaggan marka inaan ku sii dheeraado ma rabo sababo jira awgeed laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo meeshii markii oo kulan waxaa jiray oo Soomaalida iyo Muslimiinta dadka waxyaabahaas la baaskareeyay dhan ka soo horjeeday ay iskugu imaanayeen horta waxaan anagu xamaasad nagu kacsan tahay oo dagaal iyo seefafkeena galalka waxna waxa ku tahay horta anaga waxaan nahay Soomaalida seef la boodaan nahay moogtahay marka ugu horeysa labada bari ugu horeysa aan ka kacaynayo yani ninbaa waxaa la dhahay hadda kor waxaa la dhahay waxaa isi soo raacday dhurwaa iyo waxaa isi soo raacay waxay ahaayeen 10 dhurwaay ahaayeen dhurwaaga mida madax u ahaa sagaalkii dhurwaayo wuxuu u dirsaday ugaars ordaha noo soo ugaarsado dhahay meesha aan ku sii sugaa asaga madaxu u yahay waa bixin 10 halaad ay soo heleen 10kii halaad ayagoo soo wataana waxaa ka hor imaaday libaax waraa inta u socotiin uu dhahay markaas wuxuu dhahay waxaan u soconaa ninkii madaxda noo xagga jirto 10kan halaad baan soo ugaarsanay markaas wuxuu dhahay ninkii meeqaatiin wuxuu dhahay 9 haddana markaas wuxuu dhahay idinkana 9kan qaata halkan xabo 10 iskaga dhiga anna 9ka xabo isiiya 10 iskaga dhigay maadaama hal aan ah uu ka aqli badiyay alxaasib adeexiyo ka sasabtay sidii uu uga qaatay ugaartay soo ugaarsaneed ama geelay soo ugaarsadeen 10kii halaaday soo ugaarsaneen marka way bixeen ninkii madaxda u tageen oo maanta waxa soo ugaarsateen halka xabo miya halkan hal ma soo hesheen markaas wuxuu dhahay waxay dhaheen maya 10 xabo soo helnayo waxaan noo imaaday libaax baa noo imaaday libaaxi wuxuu nagu dhahay anaga ninkana halkan 10 iskaga dhiga anigana 9ka isiyo 10 iskaga dhigaya markaasuu ninkii boorka iska jafo u xanaaqay yaa si ku dhici kartaa wal libaaxa intuu boorka iska jafo intuu dhahay sidoo aniga intuu igala egyahay kaas la yiri adaa ku leh ilaa ninka dhan madaxdooda moogta markaasuu gar soo soo baxay oo boorka iska sii jafo dhagarta uu kaciyo boorku ka kiciyo markaasuu aniga miga xoog weyn yahay markaasuu dhahay markaas la yiri maya adaa ku leh maanta aniga suu iga yahay suu ugu hayaa la yiri adaa ku leh haddeer baan ka soo qaadayaa ogaada halkii xabo u qaaday waa wada markaasuu libaaxiyo meeshii intii kale meel ku xareystay hal xabo hala cunaay u tagay markaasuu yiri war libaax markaasuu ka aamus markaasuu haddana uu ku celiyay uu dhahay war libaax haddana uu ka aamus haddana mar saddexaad uu ku celiyay war libaax markii saddexaad asaan loo fiiriyay markii la fiiriyay ninkii boorarkii maanta uu kala ka kicinayo uu isku damay markuu damay uu yiri wax dhaqamaa ku helayo oo aan waxba ka aqooni qiimahaaga aan aqooni oo halshan ka soo qaatay hashiyan ku keenay qaado waa ka saay hashi urgi sidii marka uu noqday waxay dhaheen anaga ka roonayna halkeena adiga waxba ma keenin miya hadda marka sidii nimankii marka meesha waxay ka noqdeen sidii dhurwaagaas oo kale oo madaxda ay ka noqdeen waayo bahalka isheeg ayaga noo ahaa hogaankii waayo aabayaashii ayaga laga rabaa ayaga la dhahay ilaahay ku sheegay kitaabkiisa inay dumarka iyo caruurta ay naar ka badbaadshaan marka ayagii horta badana maba jooginba meesha 500 qof ay iskugu tagtay dumar niman hadii la xisaabinin dhalinyaraayo midka ugu badan 23 sano jira joogeen oo 12 qofoodna ma dhameyn 500 qofna iskugu tagtay waa wada hablo iyo bisay wada ahaayeen waxa soo hablaa wada agooma miya ilmaha dhaleen mise aawe ay kiiga ma ilmaha dhalay intii meesha joogana culimadii aan u tagnay meesha joogtay kuwii meesha tagay laga marab dadkii meesha aan ugu tagnay masaajidka annagoo marka waxa dhahay waxbay noo qabanayna xamaasadeysan oo seefta galka kala baxnay aan u tagnay moogta markaas u tagnay xas dhahayna ayaga de waxbay waxaynayaan waaba dad dameba waaba dansan yihiin waa dhurwaaga inii sheegay waaba dansanayeenbo bal waxyaabaha macnaha waxa saas ma la socotiin ya macnaha waxyaabaha ka hadleen bal waa dhageysta adu waxyaabaha ay ka hadlayaan oo yani anaga waxaan rajeynay waxaan rabnay waxaan sugeynay in la dhaho sidaan yeela ilmaha wadanka kala baxa iskuulada ha aadinina banaanbaxay abaabula ka dooda xaqan u leenahay xaqan waxaan xaq u leenahay barana baan ka sugeynay bal meesha waxay la soo istaageen waa ilaahay baa kugu dhaar okay jiya qofaan ka warhayn ma jira in room palace ku jira ama palace maanta qofaan ka warhayn ma walaalkaas jiro qofaan ka warhayn okay waxaa jira marka
بس قاعد تاعي وضدك كور قبا بالستيا ساعة يقولوا قطوحة إنكم أورن عادكود ليستين ضدك قبا بالستيا الصب إن كان كونسين كي زمان هالكن يوم إيه بلا صعدة أوكي قاعد تجيه حان وحكلوا مركا كجرا أجندها address new policies وحكلوا كجرا address the educational gap beside new policy وحنا هايستو عروتنا وحبرشلودو waxaa ku jira gaab iyo caruuraha kale Soomaa marka inta aaminsan in caruurteena caruuraha kale ay ka dambeeyaan iyo iskool aad gacantaaga aan ku soo celiyo marka sidaas ay wada meesha la soo istaageen alashaan qof walba waa ogyahay waxa meesha ka dhacay waxa meesha wada geeyay qof aan ogeyn ma leh balasiga la brief gareey waxa meesha qof aan ogeyn ma leh macnaha wixii dhan waxay noqotay yaa la socda ajandahan yaa waxaan wax kala socdo ماشي أنا واحد اسمه أتقني ماشي واحد أتقني أنا إن له جامية وأن ليج سكوير له أو أن بورك إسكجفنه إن أبغى ماشي أتقني لكن إن له المهنة واحد برشاد وده كان المهنة ولا عسورية المهنة متفتكرة على قصة المهنة واحد برشاد وهو سيان تاسقف البواك أوجيا قف أقل له وأن كورهن إن الميس سكولك وكلا كلمه عسوريين أنا قاعد أتكلم مرك المهنة سكولك إيجارين دبعت بدنا كلا كلمه معلمين تي واحد مكسوش واقع عصبه hooyo kasta markaa weydiiyaan dhawar aniga dhibkaan aan qabaaye dhibkaan ma ila qabtaa waxay ku leeyihiin maya anaga waxaas weligeena maan arkin macquul miya aniga keliga in la ii cusuriyeeyo maxaa aniga waxa igu taala miya magac in la ii cusuriyeeyo igu taala miya qof aan laga cusuriyen meesha ma jirto waa u fiirsada marka Soomaalida waxa waaye dhibaa ku dhacayo iskuma sheegayaan way qarsanayaan dhibkooda shib waxay qabaan waa afkay xiranayaan dhibaato waxa isku xuna looga soo dhiga way qarsanayaan marka anaga meesha waxaan u tagnay inaan waxaan dhacaya exactly dhacaya waxaan waxay ka xuntahay cunugaaga inuu qarax ku dhinto ama ilaahay kuma dara xabadkaaga dhinto ama daraaska dhinto waa ka sabraysaa in Allah ma sabirin laakiin cunugaaga u jeedid oo dhumaya mustaqbalkiisa dhan ay u dhamaatay finish ay tahay wax la fiirsan kara ma aha marka anaga waxaan u tagnay dhiirigelin iyo wax inaan la kulano u tagnay laakiin waxaan u socnaa maana wax kale aan la kulanay muhaadarooyin jazakallahu khayran horta waxba kama sheegay laakiin anaga karkina saarnaa iyo xamaasadina saarnayd culimada u tagnay ma ay saarneen ayagana wax kale ilmaha waxbarashadooda iyo waxbarasho maxaa lagu gaaraa horta waa in ayaga badbaadisid marka hore aaqiradooda iyo wixii aad badbaadisid iyo mustaqbalkooda aad badbaadisid ka horeysa inaan waxbarasho iyo wax bahalka sheeg ka fikirtid mid oo hal nin ayaa runta sheegay markuu hadlana mikrofoonka waa laga qaaday bal ila dhageysta ninkan ayaa runta nin waa moogtaa uu xanaaqaya الشيطة واحد أقل داشت ريالتي مان السلام عليكم haddii la rabo carruurta inay badbaadaan waa in aabbaha uu ka qaataa rool ka weyn hooyada iishuga hadda aan u joogno waa noo hadasha jazakallah sharciyada la baasgareeyey the new law intaas ninkaas markuu ku hadlay mikrofoonka waa laga wareejiyey يعني رنتو كهدلي وحو يري waxyaabahan dhacaya waxa looga hortagi karaa aabayaasha oo ilmahooda xaadir u ahaada oo sida ay ku socdaan iska daaya macnaha ishiga aaba kaliya ma ahan laakiin way ka soo galaysaa qayb ay soo galaysaa waayo aabaha cunuga wuxuu ku daysadaa wiilka cunug markuu wuxuu ku daysadaa aabihiisa ku daysadaa aabihiisa wuxuu yahay aabihiisa hadduu salaada tukado hadduu quraanka akhristo hadduu nin masaajid ku xiran yahay nin oo manay xalaal quuto hadduu yahay cunugiina aabihiisa ku daysanaya laakiin aabaha ma jooginba maxaa lagu daysanaya وقبل ما سبحان الله ما له تيشرت waxay tiri aniga leeyma soo barin xuquuqda ninkayga igu leeyahay leeyma barin aabahay hooyaday asoo xuquuq uu ku leeyahay xuquuq isku leeyahay wiliga leeyma barin aniga wiliga aaba ma arkin aniga ma dambi baa ku leeyahay aniga dambi baa ku leeyahay xuquuqda ninkayga igu leeyahay inaan la isoo barin ma dambi baa ku leeyahay aaba macnihiisa inaan la isoo barin aniga aabahay hadduu dhinto hadduu nool yahay ma kala jecel yahay because aniga dambigayga ma ahanay tiri aniga ma aqaanay tiri aabahay meel uu joogana inuu meesha igula nool yahay waa maqlay magaciisa un baan arkay laga yaabaa inaan sawir ka daawaday laakiin aniga aabahay ma aqaanay tiri subxaanallah meelna kula nool yahay marka waxyaabaha looga baahan yahay aasaaska waaye marka ninkii qofkii runta ka hadlaba mikrofoonka waa laga dafaya qofkii runta ka hadlaba waa laga dafaya waxyaabaha aan dhageysanayna intaana ugu badan waxyaabaha aan dhageysanayna sac noqon bal ninka dhageysta shiiqay meesha aan dhageysanayna ugu imaanay waxyaabahan ka mid ah
arrinta saddexaad ee gaalada caddaanka qarbigu rumaysan yahay waa maxay wuxuu rumaysan yahay la socdaya wuxuu rumaysan yahay waxaa xeera dadka ugu badan waxay xeer ka dhigtaan inteena ugu badan waxaan xeer ka dhigan ayaa xeera saddexdaa shay okay annagu markaan muslimiin nahayna maxaan rumaysan nahay number one waxyigaan rumaysan nahay number two ilaahay baan rumaysan nahay kaale adeer saaxiibo kaale soolishi kale adduunyadan aan joognay horumarka marka asxaabay waa soo dhagaysateen ana kole horta dhowt waxaan maqlay kow qof waxa la aaminaa ilaahay ka bacdi waxay la aaminaa waayo waxyiga iyo ilaahay horta horeeya ilaahay ka bacdi ilaahay waxyiga soo dejiyay marka halkaas yarkaa sheekhu waa iskaga daba marsata qalad ha u fahminin laakiin waxyaabo aan ognahay sheekha ka hadlay wuxuu ka hadlayay yani waxyiga aaminsanahay is normal everybody knows taas qof walba waa ogyahay laakiin waxay loogu talagalay in dadka la baraarujiyo oo dadka ka cala dhaho oo la abaabulo waxa wax yar maahan caruurtaadii wax yar maahan hadda midda kale aan soo ogaaday meesha waxay tahay wixii hore wax soo dhaafay awal waxay ahayd cunugaaga waa lagaa qarinaa privacyga hadda waxay ahaydba cunuga hadduu yirahdo aniga guriga waa ka cabsanaya adoo u joogto cunugaaga waa lagaa qaada state kale la geynaa meel kale la geynayo uu amaan ku dareemayo taas marka waxyaabaha in laga hadlo oo muhiimka walaa hataa maanta waa ilooba inayna dhowsas karabka ii saara lagta ii saara because xamaasada iyo xanaaqi wixii dhammaan aan nahayay meeshaasi ku dhamaatay ku dantay marka asxaabay kolleyba aniga intaan baa iga eg tahay inaan mar dambe ta kasoo hadla waayo waxaa waaye qof keligiisa maanta fal keligeed fool ma dhaqda waayo haddii laakiin ula hadda isku imaadaan oo istiirsadaan waxaa waaye wadan ilmaheena waa badbaadsan karnaa laakiin haddii uu dhaho culimmada intay ilmahooda meel kala geystaan wax ka geystaan inay anaga wadanka laakiin nothing happen like wadanka ina ilmaheena inay horumar gaaraan inay jaamacada bointiyaal fiican ka haystaan jaamacadna ku gaarayna ilmihii horta jaamacad maxay gaaraan ba cunugii horta jaamacad intuusa gaarin baaba mustaqbalkiisa lagu dheelay jaamacadii xaa gaara marka inay anaga wadanka niyadda noo qaboojiyaan ay dhahaan wadanka opportunity baa u imaanay opportunity-ga laga faa'iidaysto waa kun opportunity u imaanay laakiin inaan inta shaqaysano ka cararno ilmahena kala cararno ays ahayn in iskuulo islaamiga naloo dhiso oo iskuullada xataa ma arkino meelaha ka dhisano soomaalida marka cunugii geysatid cunugii activity ma helaayo waxbarashada laga raba ma helaayo resource-ka raba inuu cunugii banaanka activity kusoo cayaara ma helaayo cunugii niyadda ka dhimanayso iskuul wixii iskuul uma arkaayo caayow kasoo baranaya waxyaaba xunxun oo adkiisa aan qaban karin oo gaalada ay ka xishootaan bay ilmihii soo baranaya marka waxaas anaga yani waxyaabo badan aa la raba in laga wada hadlo wixii meesha laga rabay lagama hadlin laakiin insha allah khayr bay noqonaysaa soomaalida waalidiinta sida hore isu sheegana qofkii dee ilaahay u suurtageliyey oo ilmihiisa la badbaadi karana inuu badbaadsado qofkii oo u suurtagelinna inuu bahanka isheg ilmihiisa laga feejignaado hooyadii aabahana mar walba inay isgarab istaagnaadaan hooyo keligeedna wax ma kori karto aaba keligiisna wax ma kori karto in labada la isgarab taagnaado oo la isqabsado gacanta la isqabsado oo ilmaheena role model loo noqdo oo haddana iskuulkooda wixii loosoo dhiga la fiiriyo ibaadada laga fiiriyo caqiidada laga dhiso wax walba laga dhiso inta ilmaha meesha joogaan intii dadkii awoodooda lehna dadkan soomaaliya sida hore in kugu sheegaba waxaa waaye mustaqbalkooda ayaga ha ka fakaraan annaga mustaqbalkeena aan ka fakarno intaas kale iyaan dhihi lahaa videogaanan igu dambeeya insha allah bal akhyaaray iga warhaya bal labadan video waa dil igu cafiyo waxaa waaye bis waaye mar dambe abaaraya kora oga baxaya because waxa waaye in aniga bullet proof aan noqdo yani dadka inaan dadka igu soo hormaro like dadka kalena gadaal ay maraan waxaa la miskiin aan dantiisa ogeyn waxaa waaye dameer la daaq waaye maqli jiray marka aniga waxa waaye qof dhala ku jirtaan ahay marka dhala markaa ku jirtid adoo guri dhala ku jirta haddaa tuuriya bilowdid tuuriyada ugu horeysa dhala gurigaaga kaa duduminaysaa waayo aniga awlaadeeda meesha ay ka daadsan marka inaan dadkii bullet proof aan u noqdo dadka iska kaga soo hormaraya ma rabo saas darteed markaan arrintan halkaan uga gaabsanaya asxaabay wixii ducaa waa xaqiina waa xaggiina haddii aan isla soconno aan iska warhaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa salaamatihiin haddaba haddaa nagu cusub tahay subscribe-taa naga iloobin sidaa hore kuga sheegay like-tan iyo share-tana waa xaggiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabay hadda la iska warhayo tiktok-gayga waa kaas follow me snapchat-ka igala soo xiriir ha la iska warhayo waa salaamantihiin